tirsiga goorsheegta ayaa kaabiga ku haysta dhammaadka muddaxileedka 4 sano ayaa idlaanaysa 8 Febraayona 60 beri baa loo jiraa waa maalmo ay kici doonaan kar siyaasadeed lana abuuri doono xiisado kala duwan indhuhuna ay macmiil u noqon doonaan wejiga wartabiyaha iyo warbaahinta xaaladda waxaa xukumi doona hadba jihada la aado iyo nooca ay hogaamiyaasha jilaya siyaasadda Soomaalidu ay u jiheeyaan marxaladda dalka Gaylan iyo gorfeyntuna waxay kugu soo dhaweynaysaa xalqad kale iyo xaalka doorashada ee Soomaaliya waana qaybo ka mid ah taxanayaasheenii hore u socday ee arrimaha doorashooyinka ee dalka muran iyo ishaysi aloosmay bartamihii sanadkan ayaa isfahan ugu dambayn laga gaaray lana ebiyey bishii Oktoobar halkaas oo madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ku saxiixeen heshiiska hirgelinta doorashada waxa la soo saaray heshiis qodobaysan lana raaciyay habraacyo balse fulintiisa ayaa shaki ka bilowday waana qodobka aynu ku faalaynayna tabinteenna waxaan eegaynaa caqabadaha fursadaha iyo wax kasta oo macquul ah inay dhacaan 10 beri ee inagu soo fool leh dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhistay gudiyadii dhankeeda looga baahnaa markii min 4 xubnood ay u soo gudbiyeen dawlad goboleedyada oo wada jira laakiin Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa iyaguna dhammaystiray gudiyadii doorasho ee deegaanadooda shaqo u muuqatay bilowgii bishii November in si isku jid loo socday ayaa markaa lagu kala aragti duwan yahay waqtigan Puntland iyo Jubbaland waxay soo gudbiyeen min 4 xubnood 2 guddiga heer doorasho ah iyo 2 guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal ah sidaas oo kale gudiyadii heer dawlad goboleed ee doorashadan qaban lahaana maysan magacaabin dawlad goboleedyadan dabcan waa saluug siyaasadeed iyo habraaca oo ay shaki ka qabaan si la mid ah sida ay cadaynayaan mucaaradka doonaya inay doorashada u tartamaan marka la gaaro muddaxileedka hay'adahan sii dhamaanaya caqabado waaweyn ayaa ilaa hadda taagan kuwaas oo aan ku soo koobi karno 4 caqabadood oo u baahan in loo helo xal degdega 10 maalmood ee nagu soo wajahan qodobka koobaad waqtiga doorashada ka harsan sida la isla qirsan yahay waqtiga ayaa ah go'aamiyaha sidoo kale waa caqabada ugu weyn ee jirta shaqooyinka haray iyo waqtiga la qabanayo ayaa ah kuwa aad isku diidan jadwalkii hore loogu heshiiyana wuxuu noqday mid fashilmay maadaama qodobada heshiiskuba aysan dhinacyada ka soo wada bixin oo aysan isku si u raacin dhammaystir la'aanta guddigu waa caqabada labaad waxaana aan weli soo buuxsamin xubnihii maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo diidan hanaanka wax u socdaan dhanka Somaliland sida loo maamulayo iyana dood iyo saqabsi ayaa hareeyay waxayna ka mid tahay caqabada labaad ee saameynta culus reebi doonta muranka iyo khilaafka ka dhashay xubnaha magacaaban waa qodobka saddexaad kuwaas oo ay ka biyadiisan yihiin musharaxiinta u taagan madaxweynenimada Soomaaliya ee badankoodu ka soo jeeda gobolka Banaadir qodobka afraadina waa xaaladda gado oo aan weli u muuqan mid hodur socod ka muuqdo ayna Jubbaland ugu dambayn sheegtay inaysan doorashada qabanaynin ilaa ciidanka dawladda federaalka SNA ee ku sugan gobolkaas laga saaro taana waa mid ay diidan tahay madaxtooyada Soomaaliya sida ay caqabaduhu yihiin kuwa taagan haddana waxaa muuqda fursado siyaasadeed oo ay dhinacyada siyaasaddu dhabaha ugu xaari karaan habraaca doorashooyinka iyo deganaansho muuqdo oo ay wada jir u gaari karaan in 3 maamul dhammaystiran gudiyada doorashada diyaarna u yihiin qabsoomidda iyo gobolka Banaadir tani waa fursad ay heli karaan daraf ka mid ah labada kooxood ee hadda isku haya hanaanka doorashooyinka ee dalka senatarka u horeeya marka la doortana dad badan ayaa rumaysan in jihada ama qiblada siyaasadeed ee dalka ay wax iska bedeli karaan laakiin iyana waxaa ka sii dhalan kara caqabado kale madaxda dawladda federaalka waxay hadda diidan yihiin muddo kororsi iyo in doorashada waqtigeedu ay ku dhacdo ay doonayaan xilli ka mid ah waqtiyada siyaasadda waxaa laga walaacsanaa in madaxda xilka haysa ay doonayaan in muddada ay kororsadaan oo ay helaan ugu yaraan 2 sano laakiin taas hadda meesha way ka baxday waxayna darafyadu isla qirsan yihiin waqtiga doorashada madaxweynuhu ay tahay 8 Febraayo 2021 amniga goobaha lagu qabanayo doorashada ayaa qaybtood la sugay
gaar ahaan dhammaan inta badan caasimadda dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka ay qorshaysteen ayaa amni ahaan mid wanaagsan dhamaystirka shuruucda iyo tababarada guddiga badankood taasoo haddii guddiga lagu heshiiyo ama wax laga dhimo aan jadwalka dib u dhac ku keeni karin wakhti dheerna u baahnayn dhabaha loo mariya dhammaan caqabadaha iyo fursadaha isbarkan sidii looga faa'iidaysan lahaa ayay ku kala aragti duwan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasaddu waana xiisadda aloosan wakhtigan midda keenaysa iyadoo ay dad badan dareemayaan walaac ku wajahan hannaanka aan heshiiska lagu ahayn ee hadda taagan dowladda federaalku waxay dhow jeer isku dayday inay tallaabo ka dhana qaaddo Jubbaland oo ah ubuucda khilaafka waxayna ka gaabisay go'aamadaas hadda dowladda federaalku waxay u badan tahay in baarlamaanka waqtigiisu idlaanaya dhammaadka bishan arrinta Jubbaland la horgeeyo kadibna lifaaq gaar ay ka soo saaraan tani dad badan ayaa weli ka walaacsan maadaama ay tahay dhabo furan oo siyaasadeed in beesha caalamku ay farageliso arrinta taagan madaxda dowlad goboleedyada ay Muqdisho ugu yeeraan toddobaadyada dhow taas ayaa ka dhignaanaysa in weli hogaamiyaasha Soomaalidu ay joogaan inay u kala dabqaadaan dhinacyada shisheeyuhu in doorashada dib loo dhigo sidaana ay bayaan cad ku soo wada saaraan golaha xukuumadda kana codsadaan baarlamaanka muddaynta doorashada siyaana waqti ku filan in doorasho ku dhacdo talaabadan inta badan uma badna inay dhacdo marka la eego xaraaradda siyaasadda balse dad badan ayaa rumaysan xalka qayb ka noqon karto ayna hadda qaar ka mid ah mucaaradku jeclaan lahaayeen in sidaasi la sameeyo